السلام عليكم. maanta waxaa bilaabaynaa cashir cusub oo la dhahaa derivative. waa maxay cashirka cusub? badanaa waxaa ka hadli doonaa functions, balbo wax yar aan ii sawiro waxaa ka wada sa u fahantiin. Okay. waxaa haysataa inta waxaa ku haysataa x axis siday dhahaan, intana waxaa ku haysataa y axis, intana x axis. marka derivativeka muxuu naga caawinaa? Okay, waxaa haysataa functionkan haysataa, waxaa lagu dhahaa derivative. derivative waxaa waaye isbedelka functionka, waa isbedel. hadda for example kasoo qaad waxaa sawir waa buur. marka haddii aad baawur wadid, macnaha baawurka xawaarihiisa haddaa fiirisid intuu isbedela xawaarihiisa markuu buurta meeshan u imaada calaamadaas baawurka soo yariisu istaagaa. kasoo qaad haddana hoos oo soo dhacdhaca uu socona haddana. marka waxaa waaye waa isbedelka functionka. marka isbedelkiisa ka hadleena waxyaabaha badana sida loogu shaqeeyo, laakiin hadda waxaa ka shaqeyn doonaa waxyaaba iska fudud oo basic ah, bacdi ayaa fahmi doonta. waxaa loo isticmaalaa waxaan isticmaalnaa qaacidada noocan ah ee dhexeyso marka aa ku dhaho x f dhibic of x markay sheekadasaan tahay kasoo qaad f of x functionkan waa x n. markii aad derivative ah ku sameeyo wuxuu noqonaa n x n laga jira hal. okay, marka waa inaa qaacidadan isticmaalo. okay, waxaa meeshan ku qoray laga yaabo inaana fahmin, laakiin waan fahmi doonta. balba aan cashirka balba aan example soo qaato aniga oo isticmaalayo qaacidadan. examplekeena koowaad hadda aan fiirino waxaa haysataa function oo ah x square. waxaa ku dhahay waxaa rabaa inaa heshid functionkan derivative. marka derivative saa u heshid waxaa isticmaalaya qaacidadan. marka meeshan haddaa fiirisid functionka inta oo potence yahay, potencekaas oo suu imaana x labo halka jira. jawaabtu waxaa markaas labo x oo hal la kordhigo. taas waa jawaabta. midda kalena
haddii lacala functionkan tira caadi ku qornaa leed laba kasoo qaad laba ama b kasoo qaad haddii aad derivative ku samaysid tira caadi oon x wadan waxba wadan eber because derivativeka wuxuu ka hadlaa dhaqdhaqaaqa functionka marka functionka abdoona haysan wuxuu ku dhaqdhaqaaqo waa eber sida inta camal tiro kuma qorno meeshan macnaha variable kuma qorno x ama y waxba ma raacsano marka dad isbedelkiisa rabta inaa ogaato waa eber maxaa ka wadaa hadda nii sharixi doonaa kasoo qaad waxaa haysataa function f of x markaasaa waxaa haysataa kasoo qaad 3 oo x to the third laga jara hal derivativegiisa helaa ku dhacay waxaan dhehe f derivative x waxa waaye adigu qaacidada isticmaalayo potenskan hoosoo imaana saddexdaana hore meesha u taale meeshaas ku dhufta taalo marka 3 lagu dhuftay 3 x 3 laga jara hal laga jaray eber because inta tira caadiya taalo waa eber jawaabtu waxay noqotay markaas 9 x oo laba la kordhigay okay example kale ka shaqey hadda meesha f of x ka qorayo y waa ka qori kara because waxaa meesha ku qoran waxay lamid yihiin waxaan marka aan raadino waxaa haysataa f of x oo y ah caadi ahaanta y ama f of x qori karta ama y marka y badanaa fudud macalimiinta tana isticmaala marka haddaa haysata kasoo qaatan x oo 4 jibaaran lagu daray x oo 3 jibaaran laga jaray 4x square derivativekiisa yaraa ku dhaxay dhibic yaraa kor ka saare x kan 4tan way hoos imaatay x 4 laga jara hal lagu daray 3x 3 laga jara hal laga jaray 4 lagu dhuftay 2 x 2 laga jara hal jawaabtu waa maxay waa 4x third lagu daray 3x square laga jaray 8x oo hal kor jawaabta marka hadda waxaa fahamteen sida aan u isticmaali lahayn formula marka derivativeka caadi ahaanta tirada ka bad marka hadda waa waxyaabaha basic isku daya inaan fahansiiyo marka halaanu ku ekaana videoga sida hadalkeyga aad u yar mahadsan tahay